iyo siyaasiyiinta kala haya ummadda shacabku waa dad waala ah wax dhibaato ah oo ka dhaxeeya ma laha waxa loo baahan yahay madaxdu inay isu yimaadaan iyagoo u daneynaya mustaqbalka caruurtooda iyagoo u daneynaya aniga qaybtayda wax walba waa isku dayay inaan sameeyo in aan waalahayn walaalkay musabixi inaan la xiriiro oo aan la xaalo oo aan la fariisto waxaan isku aragnay Addis Ababa aan isku aragnay waxaana dhex galay Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed meel fiican yaan wax isla soo gaarsiinay laakiin ma shaqaynin haddana shirkii hadda ugu dambeeyay aan ku qabanay Djibouti wuxuu ahaa shir anigu aan ka shaqeeyay ahaa shir aniga aan ka shaqeeyay oo aan involve gareeyay oo aan ku qanciyay dawladaha Mareykanka European Unionka Ethiopia iyo walaalkan Ismaaciil aan ku qanciyay ahaa ma ahayn mid economic mid ma ahayn mid anigu aan bilaabo ahaa in shirka loo leexiyo loo waciyo Djibouti wuxuuna ahaa bilow wanaagsan inkastoo uusan sii socon aan doorasho ku jirno laakiin waxaan aaminsanahay inuu ahaa bilow fiican oo aan ka ambaqaadi karno insha Allah mustaqbalka haduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantiin حاجة قذالة ورسمة نكا قعنتك جاكيت بلوغ ها بسم الله الرحمن الرحيم مركو هore waa salaamaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo iyo ciidamada amniga sugaya ee Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan waa salaamaya magacaaga bulshooyinta howlkan ka soo qayb gashana waa salaamaya magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Faarax Looyaan waxaan ka tirsanahay abwaanada qaranka Soomaaliyeed waxaan weydiinayaa madaxweynaha xaaladdu intay yahay qof iyo cod aniga waxaan ahaa dadkii ka mid ahaa ee taageersanaa waayo dhalinyaro aan ahay bahashii haddii loo weeciyey doorasho dadban dad badan oo aniga aan ka mid ahay oo ka mid ah bahda fanka ama wariyayaasha Soomaaliyeed oo aan isku bahnahay sanadka dadka ku tala jira doorashadu in qof iyo cod noqoto sanadkana ay ka qayb galaan qoliyaha sharaxaya ayaan ku tala jirnay waayo bulshadu wayna taqaanaa abwaaniinta Soomaaliyeedna inta badan waxay ka shaqeeyaan wadaniyada iyo horumarka iyo dawladnimada maadaama aanu arinta ku fakaraynay bahasha haday noqotay doorasho dadban mudane madaxweyne maxaa kaaga qorshaysan bahda fanka anagu waxaan codsanaynaa haddaan bahda fanka nahay sida haweenka Soomaaliyeed ay qoondada loogu qoondeeyay in bahda fankana ay qoonda helaan waayo door bay leeyihiin marka intaas su'aashaas ayaan weydiin lahaa madaxweynaha waa maasantii xaqiya jooga marka gabadha dharka cas wadata السلام عليكم والسلام يا مدحوينها جمهورية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو مقعي وحفصة محمد حسين كويلي مقعة حفصة محمد حسين بالدها حفصة محمد حسين مدحوينها وحويدين يا مدحوينه حلقي دورشدي أبابل كذا هيد واحد حوق ساري سينة هلان قوندها هوينكا انت لو قلت لقلاي في لدن أن شوقنا يقروح ضبطن aad maamusho fil Soomaaliyan ma jiro hal gabar oo agaasima ka ah ama maamusha waxaan dhinacyada taagan oo filada dhan jooga waa rag hadii aad lacala soo noqotid maxaad kaaga qorshaysan gabdhaha misaanay wiilasha u joogayaan oo gabdhaha banaanka la geenaya maxay tahay cadaawada adiga gabdhaha inta dhaxaysa madaxweyne waa maasantahay ninkii mikrofoonka gabdhaha yaro roonaanaya gabadha kale iyana حجابك عصب وضتها بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وسهرة محمد فريد مدن مدحوينه وحن كويدينا يا قبل كسول يسناجي عين وحي كتير سنيهين ودن كصوماليا international community وحي كو قرانيهين إن يهين disputed area أو إسكو هايستان لبا قبل أنا ما قرنا يا دولة دنا ما وحي آمن سنتين إني disputed هديهين وملا يسكو هايستان لبا الدولة دود
waxa isku haystaana waa laba gobol oo wadankii ah marka see loogu aqoonsan yahay inay yihiin disputed area su-aasha meesha ku jirta oo ah dadkaas doorashadoodii systemka ay hawshooda u qaybsan tahay waa system aan la yaabanahay si xuquuqdoodii waxaa la raaciyey Somaliland haddana doorashadoodii iyo siyaasiyiintoodii waxaa la raaciyey Puntland marka say isu qaban kartaa maxay u noqon waayeen sida dadka Somaliland halkan loogu dooranayo ama meel kale ama maadaama ay Puntland leedahay laba cod laba magaalo ay leedahay way ay u weygeelan waayeen reer Sool iyo Sanaag ay meel iyaga lagu soo doorto assalaamu calaykum safkan hore ikawdiga بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه magacaaga magacaygu waa maxamed cali cusmaan waa ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galo madashaan madaxweynahan aan su'aalahan weydiiyo saddex su'aalood oo ku saabsan doorashada ayaan jeclahay inaan madaxweynaha saddex ugu badan yihiin waa soo koobay ayuu su-aasha koobaad golaha shacabku wuxuu ansixiyey 13 kursi oo aqalka sare ka mid noqonaysa madax adiga ayaana ka codsaday dabcan waa maxay dastuurkana waxaa ku qoran 54 inuu ka kooban yahay aqalka sare waa maxay mowqifkaaga ku aadan arrintaa iyada ah su-aasha labaad faragal ku celiyaa su-aasha ku celi ma fahmin golaha shacabku wuxuu ansixiyey 13 kursi in gobolka banaadir in loogu daro 13 kursi aqalka sare dastuurkuna wuxuu qabaa aqalka sare xubnihiisu inay ka kooban yihiin 54 waa maxay mowqifka madaxweynaha ee arrintaa ku aadan su-aasha kale waxay tahay faragelin shisheeye ayaa madaxweynuhu hadda ka hadlay khudbadiisii horena way ku jirtay dowladda Kenya oo ciidamadeedu ay waddanka ku jiraan oo maanta aan xataa ay banaanbaxyo ka jireen gobolka Gedo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenyana aysan xiriirkoodu hadda wanaagsanayn sida dabcan aniga aan u arko saamaynta ay doorashada soo socota ku yeelan karaysaa siday noqonaysaa su-aasha ugu dambaysa adoo raalliga socoto madaxweyne qof iyo cod inay waddanka ka dhacdo ayaad u soo ololeysay way dhici weyday qof iyo doorasho dadban ayaa lagu noqday doorashada soo socota anigoo dabcan guul kuu rajaynaya haddii aad lumiso marka la gaaro 2024 ama 25 haddii ay qof iyo cod noqoto doorashadu ma u soo tartamaysaa adoo mahadsan waayahay saddexdaasaan ka jawaabayna insha allah madaxweynahan sinaa محمد عبد فارح بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد فارح wuxuu yiri dhalinyaraan ahay marka haduu dhalinyar yahay maxamed cabdi faaraxna dhalinyaraan ahay bahda fanka qaybta ama doorka ku leeyihiin doorashada ma aha kaliya cod waxa weeye dadka inay maxaan ku yiraahdaa wacyi geliyaan oo suugaan wadaniyad badan ku jirto iyo dal jaceyl iyo in musuqmaasuqa oo wanaagsaneyn dawlad wanaag intaas oo dhan waxaa la rabaa inay heeso iyo geeraaro iyo gabayo ka tiriyaan marka doorkiina waa kaas horta xafsa qoondada haweenka gabdhaha villa Soomaaliya waa su'aal wanaagsan xafsa waxaan ku sheegayaa waxaa ka noqotay halkan gabar aamina la yiraahdo aamina sicid la yiraahdo waxay noqotay agaasimihii guud ee madaxtooyada ee ugu horeeyay ee gabar ah marka taas waxay ku sheegaysaa inaan gabdhaha jecelahay ogow su'aasha rooda ee ka hadashay Sool iyo Sanaag iyo electionkeeda roodo su'aashaadu waa adag tahay kama jawaabi kar raaligow maxamed cusmaan gobolka banaadir iyo qoondada aqalka 13 aqalka sare ah
arrintan xaqiiqatan waa ogtihiin anigaa bilaabay inaan codsado baarlamaanka aan ka codsado in matalaad loo sameeyo gobolka banaadir iyaguna waa ajiibeen codsigayga oo waa aqbaleen waxay ka soo saareen qaraar ay ku aqbalayaan in loo ogolaado gobolka banaadir 13 cod 13 xubin oo aqalka sare in loo ogolaado arrintaasi waa laba qaybood qayb sharciyad iyo dastuur ah iyo qayb siyaasadeed qaybta siyaasadeed waa dhamaatay oo waxa ugu dambeysay 2 usbuuc ka hor yaa waxaan isugu yeeray xafiiska isugu yeeray gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir gudoonka labada aqalka sare cabdi xaashi iyo golaha shacabka gudoomiyaha maxamed mursal oo aan u sheegay in ay soo dhaaftay hawshan siyaasad ay soo dhaaftay oo baarlamaankuna ay aqbaleen siyaasad ahaana la isku raacay marka wixii markaan ka dambeeya inay galaan farsamo sidee u waafajin lahayn dastuurka marka su'aashaas iyaga weydii iyaga ku maqan tahay arrinta dowladda Kenya doorashadan ma ku yeelan doontaa saameyn waa su'aal da'weyn waqtigeeda sugeynaa insha Allah waa mahadsantiin aad u mahadsan yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi markaan waxaan isku dayayaa inaan su'aalaha dadka naga maqan ee banaanka jooga ee daawanaya inaan mid ka mid ah soo qaado madaxweynaha weydiiyo waxa aan soo qaadayaa Dictoressa Caaliya Mursal oo joogta dalka Jarmalka waxay leedahay madaxweynaha khudbadiisii hore waxa ku jiray erayo ay ka mid ahaayeen waxaan doonayaa inaan isku hayo dalka muxuu la jeedaa ma inta doorashada ka dhiman baa ma kadib baa inaan dalka isku hayso muxuu la jeedaa bay leedahay Jarmalka joogta su'aashaasaan jeclaan u soo darashada Caaliya Mursal oo joogta dalka Jarmalka waa su'aal wanaagsan Caaliya madaxweynuhu shaqadiisa loo dhaariyay hawsha iyo shaqada loo dhaariyay madaxweynuhu waxa ugu horeysa inuu ilaaliyo midnimada Soomaaliya iyo qaranimada Soomaaliya inuu ilaaliyo ama ha ahaato xilli doorasho ama yeesan ahaanin bacdama hadda inaga soo gashay xilli doorasho oo ah xilli aad iyo aad u adag kuma wasi jirtaba waa ka adag tahayba inaan dalka isku sii hayno marka waxaan ku sheegayaa dastuuriyan madaxweynuhu shaqadiisu waxa weeye dalka iyo dadka Soomaaliyeed midnimadooda iyo wadajirkooda inuu adkeeyo waa mahadsantahay oo soo laabanayna arrimaha bulshada waxaan jeclahay inaan marka safkan ba aad iyo aad dhowr jeer ka boodbooday marka wiilashan siinaa insha Allah ninka geeska xiga raleho ku soo laabanaya insha Allah oo kugu xijinaya insha Allah oo kugu soo xijinaya ninkaas insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ورسمي محمد علي ورسمي محمد علي والسلام يا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية يو دمان مرت الشرفك مدن مدحوينه وحنجعلها هنا وحكاوي ديو قوانضنا الكوري هوين كرالي هذا قبلها أنا waxaan ka mid ahay dadka aad ugu hanweynaa doorasho qof iyo cod ah laakiin ma aysan dhicin adiga waxa tiri waan tanaasulay laakiin xoogaa in laga adkaadaan aragnaa waxaan jecleen doorasho qof iyo cod ah in waddankan ay ka dhacdo waa laga soo gudbay dadka laga yaabo inuu hanka ku jiro ama u hanqal taagaya siyaasadda inay ka mid noqdaan haddana waxaa la aaday doorasho dadban oo runtii danayna aanan ka turjumaynin beelaha qaar haddii aan baasha si qabiil u hadlo kuraastooda hadda dumaraa ku fadhiya baarlamaanka ayaan dhaweyd waxay dhaheen qoondada dumarka sidooday ahaanaysaa taasoo annaga aan u aragno cadaalad darro gabdhaha waxay mudan yihiin 50% iyo ka badan maxaa diidaya inay gabdhaha si xor ah u tartamaan ay ragga ula tartamaan 70% xataa mudan yihiin mudan madaxweyne muxuu yahay mowqifkaaga ku aadan qoondada haweenka iyo kuraasta hadda dumarka ay ku fadhiyaan waa maasanta
ninka odayga ha ha isaga udhib waa mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمد عثمان شيري مدحوينه محمد وحويدين يا سؤال كوبان مدن مدحوينه محمد عثمان شيري dalka soo hogaaminaysay anaguna taageerayaasha adoon ahayn welina waana si ahaan doonaa inta kadib anagu madaxweyne waxaan dhalay waqti qaran Soomaaliyeed jiro dalkeenu maanta wuxuu marayaa marxalad xasaasiya dalkeenu waxa waaye maanta waxaad moodaa inay jiraan awooda sidina isu dheelatiran annaguna waxaan awlaadeena macruurtana ugu sheekayna dalkeena in hal meel laga hago annaguna waxaan ay dadka jecel mar walba in dalka hal meel laga hago warbu dalku noqon doonaa in hal meel laga hago oo maaragtay awoodaha isdheelitiran qaab kale oo county ah ama awoodo yar yar oo dalka hal meel laga xukumo goormu maaragtay maxaa kaaga qorshaysan sidaas aan su'aashaas ku weydiinaya ku celi weli hal mar ku celi su-aashu waxa weeye dalku wuxuu marayaa marxalad xasaasiya awoodo isdhinac maaragtay isu dheelitiran baa waddanka ka jira adiguna aad ugu sarreyso aad tahay maaragtay maynka ugu sarreeyey marka su-aashu dulucdeedu waxa weeye maxaa kaaga qorshaysan dalka in hal meel laga wada xukumo oo mustaqbalka soo socda adigu maaragtay maxaa kaaga qorshaysan koobanta su-aashu waaya xagga gadaale ninka hadda istaagay jaakadda greyga wata ha ha adigoo ku bilaabaya magacaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته codkaaga uu yaryahay mikrofoon kor u qaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waxa weeye Dr. Cabdijabaar Dhagjar Cabdijabaar waxaan ahay wiil reer Soomaaliland gaar ahaan ka yimid magaalada Boorama madaxweyne waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiiska aad gaadheen adiga iyo maamul goboleedyada deegaamadan ka soo jeednay Soomaaliland ma laga tala geliyay su-aasha labaad ee rabay inaan ku weydiiyo madaxweyne waxa weeye Soomaaliland xaalkeega waad ogtahay bari ka maalin haddii Soomaaliland ayba soo laaban lahaydba yacni dadka maanta kuraasta ku fadhiya ee adigu ugu horeyso ma tanaasul ma samaynaysaa anoo kuraasta waddanka ugu sarreeya inaad siisaan ood xaal uga dhigtaan waxa weeye mataqaanaa taa diyaar ma u tihiin mid saddexaad baan jeclaan lahaa haddaad igu darayso mudane madaxweyne doorasho dadban waxa weeye dee waad isku ogtahay caqabadaha ay leedahay annagana waxaan hor jooga haddaan reer Soomaaliland nahay dad waxa weeye shirkiga embagaati ilaa hadda maanta fadhiya sida u eegtayna waxa weeye rag dee waxa weeye intay kuraasta fadhiyeen xoogaa jeebkana buuxsaday ta soo socota rajadeeda waan aragnaayo nibanku ka shilin badan yahay ayaa noo muuqataa inuu soo baxayo dadka jeebadaha igu maray haddana han kale maxaad madaxweyne u sheegi lahaa intaas ku soo dhaweeyay aad ma santahay saddexdan su'aal aan ka jawaabayna insha Allah madaxweynaha siinaya waxaan walaalahay warsamo ugu horeeya بسم الله الرحمن الرحيم ورسمه وحيري قوندada dumarka hadda jira ha loo badiyo saan u fahmay boqolkiiba 30 weeye wuxuu leeyahay boqolkiiba 50 ha laga dhigo laakiin tartan ha la geliyo boqol iyo 30 ma hadda waa boqolkiiba 24 24 taas kuma imaan bariyo waxay ku yimaadeen doorasho ku yimaadeen haddii ilaahay u badiyana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay intaas ka bataan hadduu ilaahay yiraahdo laakiin waxa weeye boqolkiiba 30 waa target weeye marka hadda targetkaas ma gaarin laakiin waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo dumarka qoondadooda inay gaarto boqolkiiba 30 iyo in ka badan tartankuna waa furan yahay tartan dumar loo xiray ma jiro tartanku waa furan yahay way ficnaan lahayd xaqiiqatan in la og yahay xaqiiqatan inta dumar soo noqonaysa way ficnaan lahayd laakiin haddii la yidhi waa tartan anu kolleyba waa jeclaan lahaa inaan caawiyo gabdhaha hadduu ilaah yidhaahdo maxamed shire
wuxuu yidhi dalka mala gaaraya hal meel in laga xukumo dalkan muddo ayuu wuxuu ku jiray runtii xaalado adag aad iyo aad u dhib badan ayuu ku jiray dhibaatooyin badan ayuu ka soo kabanayay dadkii waa kala tageen waa la kala irdhoobay hadda yaa bilaabanaysaa in aan ku heshiinay federalismka marka inaan xoojino federalismka qaababkii la isugu imaan lahaa oo awoodahan loo qaybsan lahaa khayraadkan loo qaybsan lahaa hadduu ilaah yidhaahdo waana qayb ka mid ah dhammaystirka dastuurka hadduu ilaah yidhaahdo waa gaaraynaa wakti isqabqabsi uusan jirin waxaani federalismka waa wax nagu cusub qof walba sidee la tahay yuu u fasirtay iyo maalintaas uu joogo laakiin waxaa la heli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo fasiraad wanaagsan oo ka muuqda dastuurka iyo haddii fasiraaddaas ay gasho shaki ay gasho meel ka sarraysa oo la aado oo ah maxkamadda dastuuriga oo kala saarta dadka hadduu ilaah yidhaahdo laakiin meesha aan hadda taagannahay way ficnaan lahayd inaan kasii fiicannahay oo meel kasii fiican aan joogno haddana naftigeeda dalku waa socdaa horuu socdaa maalin walba meel yaan joognaa meel baan taagannahay waana horena waa u socon doona hadduu ilaah yidhaahdo arrinta cabdijaabir uu yidhi maxamed shire waa sheegay cabdijaabir arrinta ah wada hadalka soomaaliya somalilan yuu ku soo celiyey iyo doorkay ku lahaan karto doorashadan su-aashaasi kolleyba dee uma baahna fasiraad uma baahna su-aashaas jawaab uma baahna laakiin waxaan kaaga jawaabayaa tan gaarka ah oo aad tiri wada hadalka iyo wada jirka iyo midnimada soomaaliyeed kursigaaga ma ku bedelan lahayd haa waa ku bedelan lahaa xaqiiqatanna horaan usoo jeediyeyba wax cusub ma aha hore yaan usoo jeediyey haddana diyaar yaan la ah hadduu ilaah yidhaahdo waa mahadsanta waa yahay gabdhaha wax ka siinayaa maryan habeen wanaagsan madaxweyne waa ku salaamay magacayga waa maryan axmed geedi maxadka raas waan salaamayaa oo barnaamijkan soo abaabulay madaxweynaha waxaan u wadaa 3 su'aalood oo kala duwan midda koowaad maadaama aad ka shaqaysay xilliga aad xilka haysay musuqmaasuqa aad la dagaashay dowladnimada wax badan aad ka qabatay sida ciidamada xuquuqdooda oo helaan muddada maaragtay 25 bisha midda kale oo aad aan kugu amaanayno waxay ka mid tahay xuquuqda sida kale maaragtay shaqaalaha rayidka dowladda oo isla xuquuqdooda helaan ma laga yaabaa haddii aad xilka banaysid madaxweyne annagoo kuu rajaynayna inaad soo noqotid waddanka muxuu geli doonaa horta taas waa inay ummadda soomaaliya isweydiiso midda ku xigto maadaama waxyaalahaas oo dhan aad ku guulaysatay maxkamadda dastuuriga oo kuu dhiman ma dhammaystiraysaa inta aan doorashada la aadin intaasaa madaxweynaha ayaan dhihi lahaa habeen wanaagsan waa yahay ninka gadaalaha bismillaah magacaygu waa maxamed xasan waa salaamayaa madaxweynaha su-aalahan horta qabay badidoodii waa la soo jeediyey laakiin su-aal aada iigu taagan oo kala jirtay maadaama la isla oggolaaday doorasho dadban dhibaatooyinka ku hareeraysanna aan ognahay inay badan yihiin qorshayaasha doorashada dadbanna ay qayb ka yihiin 101 xubnood iyo odayaashii dhaqanka meeshaan u socdaa waa odayaasha dhaqanka oo aan ognahay doorashadii hore ee dadbanayd inay caqabada kala kulantay al-shabaab markaad doodayseen idinkii maamul goboleedyadu arrintaa meesha ma ku darsateen in doorashadan dadbane la aadayaa ay khatar kale kusii ahaanayso odayaal mise taa laysmaba weydiin intaasaan idin weydiin aada umahadsan tahay safkan ugu horeeya ninka hadda gacanta kor taagan jaakada madow suudka madow wata iyo taaga muraayadaha wata haa waa adiga magacaaga adoo ku bilaabay بسم الله مقاعد محمود أحمد يوسف codkoo yare مقاعد محمود أحمد يوسف
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan uga mahadcelinaynaa inta uu xilka joogay sida uu dhalinyarada boqolkiiba 70 ku dhow inuu masabyo fara badan uu ka siiyay xukuumadda dhalinyaradaas oo ah sida xeeralyaha guud ee gobolka Banaadir agaasima ku-xigeenka madaxtooyada marka madaxweyne aad u mahadsantahay taas su'aashida hadda soo dhaadhaco madaxweyne gobolada aan ka soo jeedno waqooyiga Soomaaliya doorashadooda waxa ka dhici doonta gobolka Banaadir madaxweyne dhalinyarada boqolkiiba 70 ah waxa hortaagan caqabado badan oo aan la soo koobi karin marka madaxweyne ma noo garanti garan karaysaa mas'uuliyiinta magacaaban ama kuraasta wasiirnimada ku fadhiya inaan nagula tartamin hantida ummadda Soomaaliyeed iyo masabka ummadda Soomaaliyeed aad baan kaga mahadcelinayaa madaxweyne aad ma santahay madaxweynaha Soomaaliya saddexdaas su'aalood inuu ka jawaabo oo soo laaban doona insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم مريم waxay tiri waqtiga hadda haray ma laga gaarsiin karaa in maxkamadda dastuuriga la magacaabo qorshaha waa noogu jirtay waxaa haray hadda waa 3 bilood haddii labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare ay arrintan xoog saaraan waxaan aaminsanahay golaha wasiiradu way ka dhamaan kartaa marka waxay ku xiran tahay commitmentiga iyo dadaalka labada gole ayay ku xiran tahay marka insha Allah qorshuhu wuu ahaa oo weliba gudoomiyaha aqalka sare way ku jirtay qorshihii maxaan ku yiraahdaa kalfadhigan uu ka soo jeediyey baarlamaanka way ku jirtay marka waxaan rajaynaynaa inay ka dhabeeyaan laakiin qorshuhu waa ku jira arrinta see loo kala maareynaya doorashada dadban iyo shabaab waa xaqiiqo weeye shabaab dee bulshaday ka tirsan yihiin oo meel walba isaga dhex jiraan sababta aan ugu darnay ururada bulshada yaa qayb ka ah iyada naftigeeda vettingka sameynaya waana ka dadaalaynaa insha Allah waana ku dadaalaynaa in dadka ergooyinka ka midka ah ay noqdaan dad bulshadu ay taqaano ayna ku taqaano inay yihiin dad hufan oo Soomaalinimadooda ay fiican tahay oo aanan xiriir la lahayn sharwadayaasha maxamuud axmed yuusuf doorashada gobolada waqooyi ee ka dhacaya magaalada muqdisho maxamuud doorashadu waa furan tahay doorashada sideedaba waa nasiib iyo dadaal iyo farsamo marka intaas hadaa la timaado waxaa laga yaabaa inaad xildhibaan soo noqoto hadduu ilaahay yiraahdo waa mahadsantahay aad u mahadsan yahay mudane madaxweyne maxamed cabdullaahi markaana waxaan u laabanayaa xagga dadka internetka naga daawanaya adduunka nagala socdo su-aalahayna weydiinayaan mid ka mid aan soo qaadi doonaa insha Allah su-aasha ugu horeysa waxaan ka soo qaadayaa cabdirasaaq xaashi geedi oo jooga magaalada London waxa uu yiri madaxweynaha waxaan weydiinayaa odayaasha la yiri waxay soo xulayaan ergada 101 ka kooban doorashada ma waxay ka imaanayaan 335 odaymiyay ka imaanayaan hore u jirtay xilligii dawladii hore mise hab kala lagu soo soocaya ayuu leeyahay su-aashaas waxaa la yiraahdaa cabdirasaaq xaashi geedi oo jooga London odayaalkii la yiri waxay soo xulayaan ergada 101 doorashada codbixinta baarlamaanka bixin doona ma waxay ka imaanayaan odayadii hore 135 ka ahaa mise waa kuwa cusub oo la xuli doona iyaga macnaa ergadana ma la xulayaa odayaalkana ma la xulayaa su-aashan waxaan jeclahay madaxweynaha inuu ka jawaabo dabadeedna waan isin doonaa insha Allah jawaabta cabdirasaaq waxa weeye ergada xulitaankeedu sidaan sheegnay
heshiiskan ku gaarnay waxaa qayb ka ah odayaasha dhaqanka guud ahaan iyo civil society-ga iyo maxaa la yidhaahdaa dowlad goboleedka oo hadhow diiwaan gelin doona ama qayb ka ah 135taas oday khasbiyan waxaa laga yaabaa qaarkood inay waa hor dhinteen yaa laga yaabaa aysan hadda ku jirin meesha waxaa laga yaabaa inay si kale u xanuunsan yihiin ama aysan joogin yaa laga yaabaa laakiin waxaan sheegi karaa aniga oo keliya in iyaguna ay ku jiraan kuwa kalena lagu dari karo saasaan isleeyahay arrintaasna runtii waa arrin ay dadka dowlad goboleedyada iyo deegaanada ay joogaan ay leeyihiin go-aankeeda aad umahadsan tahay waxaan ku soo celinayaa su-aalihii annagoo soo gabagabaynaa insha allah ninka xagga koofiyadda ruuxaya waxaan u leenahay wejigiis garanaya yuusuf waa dhallinyarada isboortiga wax badan buu gacanta taagi raalli ahaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudan madaxweyne ku salaamay iyo akhyaarta ka soo qayb gashay waxaan ku weydiinayaa laba su-aalood oo muhiim ah maadaama shacabka soomaaliyeed ay rabeen doorasho cod iyo qof in la qabto oo aad dadaashay ay kugu garabsiin waayeen inay bannaanka u soo baxaan ay muujiyaan shucuurtooda inay rabaan doorasho cod iyo qof weli fursadaa jirto dadka wax dooranaya weli waa shacab marka waxaan jeclaan lahaa dadkaas in la dhiirigeliyo oo musuqmaasuqa sidii looga darin lahaa ma laga yaabaa inaad samaysid road map oo 2024 dowladda dhalan doonto ee kaga shaqeyso doorasho cod waddanka in la gaarsiiyo oo isbaarada oo maamulada waddanka ku haya looga gudbo oo isa dhicin madaxweynaha haddaa soo laabta dadka madaxweyne kale imaado aysan mar labaad ee u hor istaagin in hadda road map la soo sameeyo oo guddiga doorashooyinka xalimeeray inay sii shaqeeyaan oo 2004 dadka u diyaar garooba in doorasho cod qof la gaaro su-aasha labaad ku weydiinayo waxaa waaye maadaama baarlamaanka soomaaliya la rabo inay sharciga iyo dastuurka ilaaliyaan haddana inay xukuumadda markaa la galaan dowladdii hore wasaare qaare kulligood badanaa waxay ahaayeen xildhibaano ma laga yaabaa dowladda cusub in dadka shacabka fursad la siiyo oo dad aan xildhibaano ahayn laga dhigo golaha wasiirada waa madsantay safkan baan usoo waacayaa ninka odayga ha بسم الله ومهد علينا يا مدحوينها جمهورية مدرب محمد عبد الله فرماجو sidoo kale waxaan jeclahay inaan mahad celiyo macadka raas oo runtii isaguna soo howlay inuu munaasabadan loo maaragtay suuro geliyo magacaaga magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiwali Maxamed Axmed bulshada rayidka ka socda mowduucan waxaan is leeyahay waa mowduuc runtii mudan kuna soo aaday waqti muhiim ah mudane madaxweyne waxaan dhagaysanay hordhici aad samaysay annagoon siyaasadda runtii la soconay annaga laftirkeenu marxaladii ay soo martay bulshada maadaama aan ka tirsannahay runtii waxaan rabaa inaan horta waa kugu ammaanayaa inaad tahay madaxweyne aan sharciga ka baqin runtii waxaa la soo maray marxalado badan waddanka 4 sano oo wax dhiman oo hadda aad joogtay waana u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed madaxweyne geesiya oo markii ay joogto arrimaha dibadda ama arrimaha maaragtay saameynaya masiirka ummadda madaxweyne go'aana adag ka qaadan kara runtii oo aanay cabsi gelinaynin horta waa kugu ammaanayaa ha iska jireen waxyaabo loo kala oo laga yaabo in sida loo maareeyay si kale oo ka habooneed ay jiri karto midda ah doorasho qof iyo coda ayaa dadku inta badan ay rabeen oo sida hadda aad ka dareemayso reactionka dadka dhalinyarada u badan oo meesha jooga annaguna sidaasaan qabnay laakiin xadiis nabi ayaa wuxuu ahaa يعني لبا dhibaato midii roon ayaa la qaataa si aan fasaad kale oo aan ugu dhicin runtii ayaduna waa nooc kale oo geesinimada kamid ah haday ku muuqatay dalku inuu kala tagayo ama political anarka cusub uu galayo runtii ayaduna waa ku amaanan tahay midda dhalinyarada runtii waa la qabaa dhalinyarada dowladda dhalinyarada inay tahay waan jeclaan lahaa rag badan oo hadda meesha jooga haday ka maqnaan lahaayeen waa amaani lahayo hadda Cabdinuur iyo ka mid yahay oo agaasinka madaxtooyada iyo Cabdirashiid iyo tiim badan mudane madaxweyne waxaan jeclaan lahaa laba su'aalood oo midna kaftan ay tahay midna ay tahay su'aal doorashada ku saabsan midda koobaad oo kaftanka aan soo hormarsaday mudane madaxweyne dhuusamareeb 2 iyo 3
ilaa midii xamar hadda u dambeysay iyo ka horba doorasho qof iyo cod ahaad ku dheganayd laakiin aakhirkii u dambeysay xoogaa waxaad u baqday in sida aad xafladii sagootinta madaxweynayaasha dowlad goboleedka habeenkii dhoweedba aad u samaysay inaad istiri war hadday nimankii isla safteen odaynimaa lagaaga baahan yahay maaragtay ma laga yaaba mudane madaxweyne in habeenkaas saxiixaas markaad qaadanaysay aad u arkaysay oo aad baqdo islahayd war armayba dadka dhameba taageersan yihiin doorasho dadbanoo nimankaani muxuu ahaa aanay dadku kugu aragti yahayn oo haddaad munaasabadan maanta aad dhacaawa ka qaybgelayso aad ka qaybgeli lahayd ka hor arrintaas ay kuu muuqa lahayd inaad geesinimo ka qaadi lahayd oo aad u difaaci lahayd horta su-aashaas waa su-aal kaftara midda labaad waxa waaye ummadda soomaaliyeed waxay waaye arag mudane madaxweyne ku tahay 2016 wixii wadanka ka dhacay ceebtii doorashooyinka dadban ka dhacay ayaa ummadda waaye arag ku tahay haddeerna waxaad moodaa inay wax badan wadaagaan qodobada la soo saaray marka mudane madaxweyne runtii adigoo aad ugu ammaanan isku dayga aad isku dayday in doorasho hagaagsan oo hufan oo shacbiga u dhow inay ka dhacdo dalka adigoo aad ugu ammaanan haddana qafafa darareynkii haddaad qaadatay waa ku ammaanan tahay laakiin waxaan rabaa inaan mudane madaxweyne ku weydiiyo sidee dowladdu u damaanad qaadaysaa mudane madaxweyne sidee dowladdu u damaanad qaadaysaa in ceebtii musuq maasuqii iyo waxyaabay waddanka ka dhacay inaanay sidii iyo si la mid ah aanay u dhicin sidee u damaanad qaadaysaa aad umahadsan tahay hal gabar baan ku darayaa gabdhaha ka mid a gabadha geeska xigta labadiina waa idin kala dooranaya middaa dhinaca xigta ha magacaaga adoo ku bilaabaya بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa hoodo ismaaciil qalbi waxaan ka yimid somaliland gaar ahaan hargeysa madaxweyne farmaajo aad baan u salaamayaa su-aashaan weydiinayaa waxay tahay mudane madaxweyne tan iyo markii aad kursiga ugu sarreeya ee madaxtinimada ee dalka qabsatay ilaa imika oo waddanku doorasho gelayo mar kasta waxaad ku celcelisaa somaliland inaydaan kala maarmaynin idinkuna aydaan ka maarmin waddankuna aanu kala go-aynin 4 sano oo aad xafiiska joogtay somaliland wax wada hadal la maadgelin sanadkii aynu imika ku jirnay 2020 bishii 6 baad jabuuti ku kulanteen somaliland iyo soomaaliya go'aamaa ka soo baxay ah in shirka 15 cisho kadib guddi la saaro somaliland iyo soomaaliya dib uu jabuuti uga furmo 3 jeer uu shirkaasi dhankiina ka baaqday anigu waxaan ka mid ahaa qolooyinkii warbaahinta ee goobjooga u ahaa maxaa baaqiyey soo lama odhan karo wada hadal iyo somaliland inaad wada hadashaan diyaaru ma tiidin inaad markaa wada hadalku furmana doorashadun baad ku gelayso waxaad islahayd un ka dhabe go'aamadaadii aad u mahadsantahay waa rooda soomaa mise hooda weeye marka madaxweynaha siinaya saddexdaas su'aal inuu ka jawaabo insha allah يوسف بابورين مولانا يوسف بسم الله الرحمن الرحيم يوسف سؤال شيسا إلا سميو رود ماب oo lagu galo loo diyaariyo 2024 iyo 25 2025 waa lagu ballamay in doorashadu markay dhammaato in la qoro oo la bilaabo weliba anigu waxaan soo jeediyey in hadda la sii bilaabo qaybteeda hore la sii bilaabo guud ahaan dadka hadda joogana ay heshiis ku galaan markuu electionka dhammaadana iyada naftigeeda la sii xoojiyo marka hawshaasi waa hawl laga hadlay in loo baahan yahay road map inaan dib loo noqon wax alla wixii hadda khaldamena la saxo bacdamaa hadda sharciga doorashada la hayo wax alla wixii ka dhimanna loo dhammaystiro dowladda cusub wasiirada la magacaabi doono bannaanka ma ka imaan doonaan wey su-aasha kale uu weydiiyey taas waxaa weydiisaan prime ministerka insha allah wasaaraha cusub weydiiyey su-aashaas cabdirasaaq cabdiweli bulshada rayidka ka socda ma la damaanad qaadi karaa in musuq maasuq laga fogeeyo electionkan
horaa loo yiri Soomaali musuqmaasuq waa meheradeeda marka waxaa laga rabaa abwaanada iyo dadka culimadu inay dadka ka wacyigeliyaan in musuqmaasuq uu xun yahay laaluushka uu xun yahay si looga fogaado laakiin waa inaan helno mechanism walba oo lagu yareyn karo ama lagu tirtiri karo musuqmaasuqa hadduu Ilaahay yiraahdo hooda horta aadan ugu faraxsanahay caawa reer Soomaaliland inay meesha ku badan yihiin waxay la tahay dadkii waa saddex galay marka hadda kuwa badan waa sugeynaa inay yimaadaan insha Allah waa maasan tahay hooda su'aasha ay weydiisay waa su'aal wanaagsan annaga miyaa ka mas'uul ah in la baajiyo kulamadii aan u ballanay waxaan oran karaa labada dhinacba annaga qaybteena waa qirayaa waa ka gaabinay sababtaan uga gaabinana waxaan galnay election iyo buuq kalaan galnay siyaasadeed marka taasaa qayb ka ah inaan ka gaabinno laakiin mid ogaada hawshaan hadda ma bilaaban waxay bilaabatay 2 sano iyo bar ka hor ayay bilaabatay hawshaan laakiin waxay ahayd wax soo socday oo marna runtii la wada hadlayay marna wada hadalka uu joogsanayay anigu waa iga go'anta runtii waa iga go'an tahay ma aha wax siyaasad iyo election lagu galo waa ka weyn tahay waa masiir Soomaali weeye waa mustaqbal Soomaali weeye waa caruurteena mustaqbalkooda wax siyaasad iyo wax election wax ka weyn weeye marka waa wax taagan qof alla qofkii mas'uul ah oo damiir Soomaali leh waxa weeye inuu u istaago wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed waa mahadsantihiin safkan ka maqnaa muddo Shucayb بسم الله مدلعك ومحمد تهليل على إنها وعن كسر أوبح عاصمة وأنا اليرد الصومالية ده كشقة أرمان اليرد يدي بوليسك وطنك سؤال شيء واحد أحد الدور الشذا 2016 وحن هولودنا ده وحن كم ده جدي خلافات كحلنت خلافات كدور الشذا واحد عادي إن كراس بدن أي برلمان صوب بوين وقيف كم ده برلمان ultimate lagu dhigay 22 inay ahaayeen oo maleena istashara daraag ku soo baxay kadibna laga foqo liiro baarlamaankiina hore ka galay dikaaradii loo sameeyay mudane madaxweyne hadii ay dhacdo sidaas oo kale ay dhacdo doorashadan soo socota maadaama ay u qaab eg tahay maxaa kaaga qorshaysan in dadka noocaas oo qofka ku soo baxay looga hortagi karo waxaan rabaa inaan raacsado qodob kale madaxweyne ballanta ayada ay soo xasuuso ballan sloogadeen miya ballantaas waa banaankan u malaynayaa waxaan siinayaa gabadha siinaya magacaygu waa Safa Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda ummadda ka dhigata saxaafadda madaxweynaha waxaan weydiin lahaa dawladdaadu way ku adag tahay la dhaqanka raallahu magaca ku celi magacaygu waa Safa Maxamed Safa Maxamed yes Safa Maxamed Safa miya yes okay magacaygu waa Safa Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda ummadda ka barata kulliyadda saxaafadda madaxweynaha waxaa weydiin lahaa dawladdaadu waxay ku adag tahay la dhaqanka saxaafadda waxaana soo dhow doorashadii oo fooda nagu soo haysa maxay tahay qorshaha u degsan ee lagala dhaqmi rabo saxafiyiinta waa mahadsan tahay halka oday muraayadaha wata aad buu maaragtay dhaarna way ku jirtaa malaynaya inaan siiyo ku qasbanahay waa kaftumaya بسم الله marka koowaad waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo sida tanaasulka leh iyo maslaxadda Soomaaliyeed oo isku haayo waxaan rabaa su'aasheeda inaan weydiiyo 3 sano barkaad la soo dhaafay xukuumadda wax shaqaale ah
oo cusub lama qoran barnaamijka sanad walbana Soomaaliya iyo guud ahaan dhalinyaro badan ka soo baxa oo jaamacadaha ay soo saaraan marka maxay tahay qorshaha xukuumadda dhowrka bil harsan shaqa abuurka dhalinyarada oo ah in beerolka dawladda ay galaan dawladda qorsheedu yahay su'aasha labaad aan xijinayo waxay tahay madaxweynaha hadda laga maqlay horta saakay baarlamaanka ayaa ansixiyey doorashadii qofka ugu horreeyay inaan naqdaan raba weydiyo ah madaxweyne horta musharax ma tahay markuu maadaama dalku doorasho u galay oo doorasho u aaday mar la ansixiyey magaceyguna waxa waa Fahad Ali Xasan Fahad miya فهد علي حسن فهد ما سنتهي مدحوينها سينيا سؤالها ku jawaab barnaamijka soo gabagabeynaa insha Allah waqtiga nagu dheeraada oo geetraalin ka hada marka labada su'aalood insha Allah waa saddex tahliil ubaxa caasimada ayaa ugu horeeya محمد تهليل ubaxa caasimada runtii waa dhalinyarada isxilqaantay oo bilicda magaalada iyo quruxda magaalada maalin iyo habeenba u soo jeeda oo runtii ka shaqeeya marka fadlan labada gacmood isku geeya ninkaas shaqadiisa iyo ururkiisa shaqadaad qabato aad iyo aad ayaan runtii kaaga mahad celinaynaa oo volunteerka ah oo aad magaalada ku qurxiso waxaan rajeynayaa dhalinyarada kale inay kugu dayato hadduu ilaah yidhaahdo su-aasha uu i weydiiyey waa su-aal saxa weeye doorasho walbaba waxbaa ka soo baxa wax la yidhaahdo perfect ma jirto khaldaad waa imaan karaan insha allah waxaan rajeynaynaa wixii khalad oo muuqda inaan qabanno oo aan meeshii lagu sixi karo aan ku saxno hadduu ilaah yidhaahdo laakiin election walba iyo doorasho walbaba waxbaa ka soo noqda oo wax iska normal ah ama ha ahaato Africa ama wadamada hore u maray ha ahaadaan safa waxay tiri annagu inaan u darannahay saxaafadda arrintaas waa dacaydna laga faafiyey adeer marka xaqiiq saxa maaha waxaan aaminsanahay dowladdan inay aad uga shaqaysay wada shaqaynta tooska ah iyo maxaan ku raahdaa wada shaqaynta suxufiyiinta waa dhab weeye dee dad waxaa jira suxufiyiin u eg laakiin aanan ahayn suxufi waxaa laga yaabaa inaysan aqoonteeda lahayn iyo khibraddeedii khaldaad badan oo aanan caadi ahayn ay iska galayaan ama waxaa laga yaabaa qaarba inay meelo kale ku xiran yihiin ay shabaab ka mid tahay oo ay shaqo ku jiraan oo ay ka shaqaynayaan sidii ay dhibaato iyo khalkhal u abuuri lahaayeen laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan ku dadaalno wax walba oo awooddeenna ah soo dhawayntooda iyo wada shaqayntooda bahda saxaafadda taas daliil waxa u ah inaan saxiixay baarlamaanku uu ansixiyey sharciga ugu horreeyey oo saxaafadda oo siinaya xuquuq la taaban karo suxufiyiinta iyo idaacadaha guud ahaan arrinta uu Fahad weydiiyey arrinta shaqaalaha waxay ku xiran tahay dakhliga dawladda soo gala iyo miisaaniyaddeeda ku xiranta haddii miisaaniyadda dawladdu ay kor u kacdo khasbiyan waa inaan kordhino shaqaalaha dawladda u shaqeeya annagoo fiirinayna khibradahooda iyo kriteria ay ku soo galayaan hadduu ilaah yidhaahdo su-aasha yaab kale oo aad weydiisay oo aan naga leexan karin jawaabteeda markay munaasabtaan kuu sheegi doonaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo aad waa mahadsantihiin annagoo gabagabadii joogna oo wakhtigu uu naga dhammaaday waxaan ka cudur daaranaynaa inaan su-aalaha intaa ku ekeenin idinkoo raalli ah wakhtiga aad iyo aad u dheeraaday insha allah madaxweynaha ayaan ku celin doonaa barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyey hay-adda raas ee cilmi baarista ah oo hay-ad soomaaliya oo ka dhisan waddanka gudihiisa waxaana marti maanta inoogu haa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo naga aqbalay iyo idinkoo martino ah
ugu dambeyntii waxaan ku wareejinayaa madaxweynaha inoo soo xiri doona iyo su-aasha ugu dambaysa oo ah dad badan waxa ay aaminsan yihiin intii uu xilka qabtay inaanan soo fadhiisan meel fagaaro oo noocyadan oo kaleeta aan aada u badnayn ma laga yaabo inuu sii kordhiyo inuu dadka la hadlo fagaarooyinka noocan oo kale ah soo fadhiisto iyo raas mar kale iyo ugu dambeyntii waxa uu ku dari lahaa doorashada qaabkay u socoto dadka soomaalida wixii uu ku tegey waa mahadsantahay cabdirasaaq aad baan runtiida kaga mahad celinayaa soo dhoweynta iyo raas machadka raas institute hawshaan aad qabateen oo wacyigelinta ama inaan isweydiino wixii xaaladaha jira guud ahaan dalka khaasatan arrimaha doorashooyinka su-aal yaan rabaa lagu celceliyey inaan hal mar ku noqdo oo ah arrimaha tanaasulka tanaasulku waa wax wanaagsan laakiin dhaqankeena soomaaliga ma laha waa compromise waxa weeye qofku markuu tanaasulo waxaa loo akhriyaa in laga adkaaday ma aha in laga adkaado qofka hadduu walaalkiis u daayo isna waa loo deenayaa markiis macnaha markay timaado oo runtii tanaasulka aniga aan sameeyey hadda ay qayb ka tahay sida aniga aan sheegay inuusan shisheeyeyna soo dhexgelin habeen dhaweydna waa yaro taabtay haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo dhibaatooyinka dalkan soo maray intooda badan waxay ka timid tanaasul la-aan maxaa yeelay laba hogaamiya wax isku qabsanaya intay ka heshiin kareen ama compromise ay ka geli kareen nin walba ninka kale wuxuu rabaa inuu xarigga ku gooyo markaasna khasab waxaa imaanaysa in la soo dhex galo soomaali runtii way ka daashay in la soo dhex galo ama meelo looga yeero oo loo kala garqaado wax wanaagsan ma ah muddo dheer ayaan ku soo jirnay hadda waxaan rabnaa marka in aan ka bislaan arrintaas oo aan majuur ka noqonno oo annagu aan raadinan dhexdeenna inaan isxalinno oo aan xal helno xalkaasna kow waxa ka ah tanaasul culeysyada soomaaliya haysta culeysyada sahlan ma aha muddooyinkii la soo dhaafay 30 sano aan ilaahdee waxyaabihii nagu dhacaayey ma ahayn wax annaga dhexdeena keliya ma ahayn waxay ahayd wax naloola kacaayey oo qorshaysan laakiin annagaa isu muuqanna dhexdeena isu muuqanna hadda arrinta somalilan iyo annagu waa dhexdeena waa ka xallin karnaa waa wada fadhiisan karnaa laakiin dee waa loo baahanya mararkaas kale in dibadda loo baxo oo dowlado kale ay galaan suudaan dhibaatada haysata hadda 2 usbuuc ka bacdi south suudaan yaa dhexgelaysa oo heshiisiinaysa waa waddan xoog leh oo stable ahaa xasilooni siyaasadeed haystay muddo dheer oo dagaalo badan soo maray oo ka guulaystay cunaqabateyn badan oo lagu hayay muddo 25 sano ka badan hadda dhexdooda waxaa ku jira south suudaan oo heshiisiinaysa annaga marka ma doonayno in hawlaheenna ay dad kale soo galaan annagoo xallisan karna annagoo og soomaaliya inay meeshaan taallo inaysan ahayn wax accidenti ah wax kama ah inaysan ahayn ay tahay wax qayb designed ah oo la design gareeyey oo xaqiiqo ah waxaan idinka siinayaa tusaalooyin dowlado waxaa jira annaga sida aan nahay ku faa'iida yaa jira waxaa jira NGO-yo ku faa'iida annagu inaan dhibka ku jirno dowladahaasi waxay nooga faa'iidaan dhan dhaqaale waxay nooga faa'iidaan dhan siyaasad waxay nooga faa'iidaan dhan security iyo ciidan iyo nooga faa'iidaan dhanka dhaqaalaha soomaaliya dhaqaalo badanaa ku baxa dhaqaalahaas wuxuu soo maraa dowladahaas qaarkood iyuu soo maraa lacagahaas faraha badan intoo badan waxay ku hakadaan dowladahaas iyo ku hakadaan caasimadahooda waxay u abuurtaa shaqo abuur dadka u shaqeeya hay-adahaas hoteeladay degan yihiin guryahay degan yihiin makhaayadahay wax ka cunaan dhaqaalahaas waddamadaas ay joogaan yay kabaan haddii marka soomaaliya arrinteeda ay xalismato dhaqaalahaas will dry up waa joogsanaysaa dhaqaalahaas iyagu culays yay ku noqonaysaa marka shaqo la-aana ku dhacaysa hoteeladooda waa xirmayaan makhaayadahooda waa xirmayaan
marka ma rabaan annaga inaan waxayna xalisano oo dalkan uu dego ma rabaan maxaa yeelay lacagahaas bilyanska ah oo dalalkaas ku socda oo bangiyadooda ku socda waa joogsanaysaa waxaa intaas dheer ganacsatadeenna bacdamaa ay ka baqaayaan inay maal gashadaan mararka qaarkood xasiloonida siyaasadeed darteed amni darrada darteed waxaa laga yaabaa inay maal gashadaan dowladahaas inay dalalkaas inay maal gashadaan oo ganacsi ka samaystaan oo hoteelo ka gataan oo guryo ka gataan iyo ganacsiyo kale ay ku galaan lacagahaas ama bangiyadaas ee xawaaladaha ay dhigtaan lacagahaas oo ay dhiibaan fee ama canshuur ay dhiibaan lacagahaas waa lacaga ka maqan soomaaliya ka maqan soomaaliya hadday degto dhaqaalahaas ganacsatadeen ay ku maalgashanayaan dowladahaas ama dalalkaas waa joogsanaysaa sidaas darteed dalalkaas waxay rabaan xaaladahan ku jirno inay ku jiraan intaas waxaa dheer diaspora waa dhaqaale kale waa yimaadaan dalka oo soomaalida socodkooda waa reer guuraa baan nahay socodkooda waa badan yahay waddamadaas kusoo hakadaan hoteeladay degaan mararka qaarkood markay jeclaadaan waddamadaas xasiloonida ay haystaan iyo deganaanshaha guryahay ka gataan ama ganacsi ay ka galaan ama hadduusan lacag badan haysan hoteelada maalmaha uu joogo lacago badan uu ku bixiyaa lacagahaas waxaa laga yaabi karaa haddii ay halkan toos u keenaan dhaqaalo badan inuu dalka geli lahaa iyo maalgashi lacagahaas oo dhan waa joogsanayaan soomaaliya hadday xasilaan